السلام عليكم كسو دواada qisadan ku cibro qaadashada mudan qisadani waa qiso xaqiiqa oo ay dhex martay gabadhan yar iyo hooyadeed waxay ka yimaadeen gurigooda waxayna soo aadeen beertan aad ka qurux badan si ay ugu damaashaadaan hooyadii moobilkeeda ayaa la soo wacay waxayna bilowday inay ka qabato oo la hadasho isla waqtigaas gabadheedii ayaa ka tagtay iyadoo ku ciyaarayso kartoon beerta dhexdeeda laakiin hooyadii ayaa daqiiqad kasta kor ka eegaysay gabadhii yareed iyadoo ku dhex jirto kartoon ay ku ciyaarayso daqiiqada kadib gabadhii yareed waxa u yimid qof kaasoo kaxaystay laakiin wali hooyadu ma oga in gabadheedii la xaday kadib hooyadii ayaa dhameysatay hadalkeedii waxayna bilowday inay u yeedho gabadheedii hooyadii ayaa u soo dhaqaaqday dhinacii kartoonka iyadoo aaminsan in gabadheeda ay ku dhex jirto kartoonka markii ay dul timid kartoonkii waxay aragtay isagoo eber ah oo gabadheedii aysan ku jirin markii ay kor u qaaday waxay ka dhaxashay jijin ay gabadheedii xirneed hooyadii ayaa bilowday inay raadiso gabadheedii iyadoo weydiinayso qof walba oo ka hor yimaada Phoiอยู่ไหนคะลูกพลอยไม่เล่นอย่างนี้นะ ilaa ay u tagtay haweeney booliis ah ayna u sheegtay in gabadheedii la xaday kadib waxay aaday saldhig booliis oo ka ag dhawaa waxayna u dhiibtay jijintii gabadhii yareed hooyadii ayaa u sheegtay booliiskii siday gabadheeda ay ku weysay booliiskii ayaa weydiiyey gabadha adiga miyaa dhashay hooyadii ayaa ku tiri haa sidoo kale waxa uu ka waraystay da'da ay gabadha jirto iyo sida ay u eg tahay markii hooyadii u sheegtay tilmaamihii gabadheeda booliiskii ayaa ku yiri annaga ayaa kula soo socodsiin doona wixii ka soo kordha gabadhaada waxayna ka qorteen lambarkeeda hooyadii ayaa u soo laabatay gurigeeda waqti dambe waxayna ag fadhiisatay albaabka hore ee guriga iyadoo sugaysa in gabadheeda ay u soo laabato hooyadii ayaa soo gashay qolkeeda iyadoo murugaysan ayay soo xasuusanaysay waxyaabihii ay gabadheedii ay ku ciyaari jirtay kadib hooyadii ayaa iska seexatay subaxii markii ay soo kacday waxay aaday saldhigii booliiska si ay u soo hesho macluumaad cusub markii ay timid waxa ay weydiisay waxa ka cusub gabadheedii booliiskii ayaa u sheegay in gabadheedii la xaday hooyadii ayaa aad u murugootay iyadoo ku qaylinaysa maad ii raadisaan ninkii booliiska ahaa ayaa ku yidhi isdeji hooyo waan kuu raadinaynaa gabadhaadaคุณตำรวจเคยมีลูกไหมอะผมรับรองด้วยเกียรติของตำรวจเลยนะครับว่าจะติดตามลูกสาวคุณกลับคืนมาอย่างสุดความสามารถ hooyadii ayaa u soo laabatay gurigeeda iyadoo dareemaysa murugo aad u xun maalintii xigtay iyadoo dhex fadhisa guriga waxaa soo wacay booliiskii markii ay ka qabatay waxay u sheegeen in si degdeg ah ay u timaado saldhigga booliiska hooyadii ayaa si degdeg ah u tagtay saldhiggii markii ay soo gashay booliiskii ayaa ku yiri isdeji hooyo oo kursiga ku fadhiiso booliiskii ayaa u sheegay in musiibo dhacday shalay oo dad badan ay ku dhinteen in ay ku jirto gabadhan yar ayna ka soo qaadeen sawiradan
วัสดีค่ะคุณตำรวจ เชิญนั่งก่อนครับ ค่ะ ก่อนอื่นผมอยากให้คุณแม่เนี่ยตั้งสติกับสิ่งที่จะได้ยินนะครับ เพราะถ้าเรายังไม่ได้สรุปนะครับว่าเป็นน้องพลอยอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้ laakiin hooyada waxba kama aysan fahmin sawirada inay tahay gabadheeda iyo in kale sidoo kale waxay tusiyeen caddeemo in shilkaas dhacay ay ku dhimatay gabar yar waxay soo bixiyeen sheeyadii caddaynayay in gabar yar ay ku dhimatay shilkii shalay dhacay ของแข็งโดนกระทำชำเราและถูกเผาครับ ผมอยากให้คุณดูหลักฐานพวกนี้หน่อยครับ อันนี้พอจะคุ้นตาบ้างไหมครับ hooyadu markay aragtay sheeyadii waxay xaqiijisatay in aysan ahayn gabadhaydii hal mar ayay meeshii ka carartay waxayna aaday gurigeeda iyadoo saa'id u oynaysa waxayna bilowday inay soo xasuusato gabadheedii โดนกระทำชำเราและถูกเผาครับ maalmo kadib albaabkii guriga ayaa la soo gargaraacay markii ay hooyadu furtay albaabka waxay aragtay booliis bannaanka taagan mid ka mid ah booliiska ayaa ku yidhi saaxiibkiis fur albaabka gaariga markii la furay albaabka gaariga waxaa ka soo degatay gabadhii yareed waxayna u soo carartay hooyadeeda iyadoo ku qaylinaysa hooyo hooyo hooyadii ayaa booliiska weydiisay sida ay ku soo heleen gabadheeda booliiskii ayaa ugu jawaabay waxaa laga soo dhigay nin sidoo kale waxay weydiisay waxa ku dhacay gabadhan ag taagan booliiskii ayaa ku yidhi gabadhaada waxaa xaday nin kadib waxaa aragtay gabadhan waxay isku dayday inay ka dhigto oo waa ay kula dagaalantay markii ay ka dhigtay ninkii tuugga ahaa ayaa bilaabay inuu garaaco sidaas ayayna dhaawacyo ku gaareen kadib waxaa ka celiyey nin kale kaasoo markii dambe haweenaydii u qaaday isbitaalka hooyadii ayaa u mahad celisay gabadhii iyadoo aad u oynaysa halkaas ayay noogu soo dhammaatay qisadeennii xanuunka badneed fadlan sii faafi qisadan si ay u gaadho waalidiin fara badan kuwaasoo carruurtooda ugu mashquula waxyaalo kale si ay ugu cibro qaataan qisadan waa anigoo zaki maxamuud idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ไม่เป็นไรจ้าถ้าใครเป็นพี่อยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นก็ต้องทำนะ ไม่เป็นไรค่ะ ขอบคุณพี่มากๆค่ะ